horumar dhinaca kasta ayaa ka socda caasimada Soomaaliya ee Muqdisho kabca korsimo leh ayaa laga dheehan karaa waxaana kamid ah dhinacyada ganacsiga haddaba waxa caasimada ku soo badanaya meelaha lagu qurxiyo dumarka oo gaab iyo dhismayaal casri ah kulansaday Suban Beauty ayaa xalay Muqdisho laga dahrogay waxaana ka soo qayb galay qaar kamid ah xildhibaanada dumarka ee labada gole ee baarlamaanka iyo mas'uuliyiin kale oo ay kamid tahay gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka. Xaruntan ayaa ahmiyad weyn u leh haweenka Soomaaliyeed si ay u helaan adeegyo dhameystiran oo aasaasiga u ah quruxda dumarka. milkiilaha xarunta isqurxinta ee dumarka Suban ayaa ka warbixisay adeegyada ay bixiso xarunteeda. Suban Beauty waxay suubinaa anaka beauty products oo ah foundations, concealers, eyeshadows iyo lipsticks. waxaan u suubinaa waxay waaye ina cadeynta iyo gabdhaheena Soomaalida ee ku mashquuleen in la iska joojiyo. Productyaasha anaka keenay waxay kalarkaadiyo soo saarayaan, midabkaadiyo soo saarayaan. So waxay rabnaa gabdhaheena Soomaalida inaan ku faani karno midabkeena. gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab ayaa dumarka Soomaaliyeed ugu baaqday in ay midabkooda ilaashadaan ayna iska dhaafaan waxyaabaha dhibaateyn karo. dadkeenii u bateen inaanay ku kalsoonaanin waxyaabaha make-upka la marsanayo oo runtii aan waxba maaragtay u kordhinaynin gabdhaha. anigu midabka madowgan jeclahay kaasoo asalba uu yahay inaan anagu nahay Afrikaan kalsooniduna ay tahay kan alla ku siiyo quruxdana waa midka Rabbi ku abuuray. xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maryan Cariif Qaasim iyo Caashi Koos ayaa dhiirigeliyay haweenka da'da yar ee ganacsiga ku soo kordhiyay. aad ayaan ugu faraxsanahay maantay gabar yar oo dhalinyaro ah oo wadan ku soo kortay qurbo ah oo haddana jeclaatay in dalkeedii maantay ay keento aqligeeda iyo garaadkeeda iyo maalkeeda iyo nolosheedaba ay ku keento. waxaan ku boorinayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed inay ku daydaan gabdhaha yaryar ee fikirka fiican keenay oo midabkooda quruxda badnaayee maariin dhalaal xiga. Senator Faadimo Green ayaa bogaadisay xarunta cusub ee Suban iyadoona sheegtay in ay muhiim u tahay quruxda dumarka. kaas anaga naanfacayo waad u jeegtiin gabadha quruxdeeda waa midabkii Soomaalida la dhihi jiray akhtar jabiska marka inagoo dhan Soomaali waxaan wadanahay akhtar jabiskaas waxa lagu soo dhawaado. gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliim Ismaaciil Xaliim Yarey ayaa ganacsatada qurbo joogta Soomaaliyeed ugu baaqday in ay dalkooda maalgashadaan. dhalinyaradii waa noo soo noqonaysaa Soomaalidii joogtay oo dagaalku ku dhacay oo sanadaha joogay hadda bilaaba inay baxaan war ha bixina kana iimaanku ku jira kan hala jooga aan ka wada shaqeysano. Faadimo Daahir Caddo warbaahinta qaranka Muqdisho.